Hello, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا عشر كيني أو نوغا برتين halkan aan kusoo gudbino cashar la xiriira tiknoolajiyadda hase ahaatee maanta casharkeenu casharkii tiknoolajiyadda uu ka duwan yahay casharkeenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa qodob aad u muhiim ah oo ah xagga caafimaadka ku saabsan yahay wuxuuna ku saabsan yahay geedka loo yaqaano liinta geedka liin dhanaantu khaasatan geedka liin dhanaanta la dhaho weeyaan waana geed aad iyo aad u muhiima so waxaan u baahannahay inaan in badan ka ogaano waxyaalo badan oo guriga inala yaalo oo aynu heli karno mar kasta oo caafimaadkeenana aad iyo aad ugu muhiima marka haddii ruuxu caajis uu dareemayaa waxyaalo badan buu dareemayaa xafiiskada joogaad caajisaysaa wax badan baa ku qabsanay marka bal liinti maxaad aqoon u leedahay liintu waa tanaa liin dhanaantu waxay ka kooban tahay oo laga helaa vitamin C vitamin E iyo waxa loo yiraahdo float and iron waana mid aad iyo aad muhiim ugu ah ruuxu markuu cabo oo biyaha uu ku darsado aad iyo aad muhiim uga weey liintu sidoo kale macnaha maartay waa mid anti cancer wax la sameeyay oo kansarka ay ka hortagtaa oo caabuqyada kansarada keena ay ka hortagtaa marka oo caabuqyada waxaa kamid ah waxa la yiraahdo antioxidant waxa la kamid ah oo ah waxyaalaha kansarada ku dhashaan iyo caabuqyasha kansarada faafiya marka liin dhanaantu qodobada iyo muhiimadada ay leedahay waxa kamid ah waxa la yiraahdo neutralizer oo ay leedahay oo garanaysaan sidoo kale liintu waxay ruuxa ka caawinaysaa oo kale waxyaalaha systemka qaabka jirkiisu u dhisan yahay waxa loo yaqaan digestive systemka ama sida jirka bini'aadamku u dhisan yahay waxyaalaha cunto mareenada neef mareenada waxyaalaha soo idil iyo qofka ka caawinaysa inuu neeftu ku dhimato sidoo kale qofka waxay u soo celisaa haddii biyo ka baxeen oo fuuqbax u sameeyo kale qofku hadduu ama shubmay ama matay sidoo kale waxay qofka sidoo kale ka caawisaa liintu inay maskaxda awood u yeelato brain power waxa la sameeyay meelkaas maskaxda waxa kale oo potassium iyo vitaminadaas oo dhan bay soo celisaa oo ay qofka bini'aadamka u sameeysaa waxay sidoo kale qofka bini'aadamka kor u qaadaysaa liintu dehydration wala in macnaha maartay markuu fuuqbaxo ay biyo iyo wixii agaar u socdaan marka liintu aad iyo aad bay muhiim ugu tahay qofka bini'aadamka jirkiisa markii la cabahayana qaabab kale loo diyaariyaa jira oo aad iyo aad u muhiim ah liinta markii la gooyo liinta la gogoyo siyaabo badan baa dadku isticmaalaan marka waxyaalaha daawada u tahay waxa kamid ah qofka beerkiisa inay acidka ka yarayso sidoo kale qofka bini'aadamka difaaciisa inay samayso kale qofka sidoo kale markuu macnaha maartay allergiyaasha ku bacsiin sida hindhisada hargabiyada waxyaalahaas oo kale iyo aad muhiim ugu tahay daawada liintu dhaqaatiirta caalamiga aad iyo aad bay macnaha maartay waxyaan marka ilaha kale dabiiciga ugu wanaagsan natural laga helo waxa kamid ah vitamin C-ga waa geedka ugu wanaagsan ee vitamin C-ga laga helay kamid tahay liin dhanaantu qodobka lixaad oo kale waa mid aad u caawinaysa qofka bini'aadamka inuu miisaankiisa dhimo dad badan baa ku dhibaataysan miisaankana iska dhimaan waxaan leeyahay liinta caba waa waxa ugu wanaagsan ee liinta ku cabaan qodobka toddobaad ee kale oo arki doontaan inoo soo socda waxaan iyadana qofku bini'aadamku sameeynaya inuu macnaha faraxa iyo jirkiisa caajis ka bixiyo wax ka bixiyo oo macnaha maartay ay samayso oo dadkan caajisanay macnaha maartay ay ka caawinaysaa wax la yiraahdo energy boost bay samaysaa sidoo kale oo macnaha qofka jirkiisa iyo caafimaadkiisa ay ka dhigto waxay kala kor qaataa vitaminka sidoo kale lamarka sideedaad liintu waxay sidoo kale ka hortagtaa ololka beer olol in ruuxu sameeyo oo laabjeex ku kaco waxyaalahaas oo ku kaco ayay gubtaa oo ka hortagtaa baasho waxay sidoo kale yaraysaa qofku markuu waxyaalaha maartay wax cunahayo in xanuunka feeraha ka dareemayo xanuunka ka dareemayo sidoo kale liintu waxay ka caawisaa liqitaanka qofka bini'aadamka inuu wax liqo ayay ka caawisaa oo digestive systemkiisa ay caawisaa oo in macnaha maartay wax caawisaa waxaa kale oo beer ololkaas aan sheegno laabjeex markuu ruuxu bini'aadamku sameeyo kale waxay kale nadiifisaa jirka say nadiifisaa garanaysaan liintu marka jirka la mariyo batatanba waxa bacterialka iyo waxyaalahaas oo dhan way gubtaa wayna dishaa waana shayga ugu wanaagsan ee antibacterials lagu sameeyo waxaan laqman ruux meesha hadda marka ka soo baxo musqulaha kale in ayada farxashaan qodobka 11aad balance ka samaysaa jirka waxa pH level waxyaalaha jirka bini'aadamka lagu cabiro cabirka ugu wanaagsan ee wax lagu cabiro ay balance fiican u samaysaa markii biyaha lagu daro waxa lagu daro ay sameynaysaa saas balance pH ay samaysaa qodobka 12aad waxay caawisaa sidoo kale kansarada ay macnaha maartay daawada iyo qabowga waxaan la maahan ka wadaa qabowga hindhisada waxyaalahaas kale daawo kartaa waana daawada ugu wanaagsan dental cure ilkaha daawo u tahay waa daawada ugu wanaagsan ee ilkaha lagu daaweeyo ay ka mid tahay liintana
dadka markay ilkuhu madoobaadeen ama ilkuhu ka dadanayaan ama xanuuna yirid kaliya waxaas ugu dhaceen ha cabeen liinta aroortii markay soo toosaan biyo qandaca ha ku darsadeen liin ha ku mirteen subax kasta ha ku mirteen haddii ilku ku xanuunsan yihiin haddii miisaanka alla ka cilaadahay wax kasta oo qabto aroortii markaa soo toosta intaada wax kala cunin iyada cab fadlan ha iloobin inaad micnaha maartay subscribe dhahdo page-kana micnaha maartay aad like saarto ood fadlan share garaysana ha iloobina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته